maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha shanaad 2022 waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada toddobaadlaha shirku markii uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shirku wuxuu guda galay in uu marka koobaad la soo gudbiyo ay soo gudbiyaan wasaaradaha hay'adaha amniga dalka iyo xaaladda guud ee amniga dalka iyadoo lagu falanqeeyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo xaaladaha gobolada dalka iyo guud ahaan caasimadda Muqdishoba ka dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyay kadib golaha waxaa iyagana si kooban warbixin uga soo jeediyay xaaladaha caafimaad ee dalka gaar ahaan COVID-19 ka wasaaradda caafimaadka oo uu soo jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda golahu maanta wuxuu si buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyay miisaaniyadda guud ee dalka oo wadarteedu ay dhan tahay 918.7 milyan oo doolarka Mareykanka ah iyadoo loo gudbin doono sida uu qabo sharcigu golaha baarlamaanka muddooyinkan hadda foodo inagu soo haya maadaama dalku yeeshay baarlamaan cusub oo sharci ah sidoo kale si loo dardargeliyo hawlaha amniga dalka oo marxalad kala guura haatan ku jira waxa la soo gudbisay wasaaradda amniga oo la ansixiyay taliyaha nabad sugidda qaranka oo loo ansixiyay mudane Mahad Maxamed Salaad oo ah mas'uul Soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyay hay'adaha sharci dejinta dalka iyo golaha fulinta golaha wasiirada Mahad waxaa lagu qaybiyay maanta golaha wasiirada CV-giisa ama taariikh nololeedkiisa taas oo ay keentay in golahu uu si aqlabiyada ku ansixiyo taliyaha nabad sugidda qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad